yahan waxa aad loo hadalhayay baraha bulshada in maxkamadda darajada koowaad ay xukun riday ku saabsan kufsi ka dhacay magaalada Garowe oo maxkamadaas runtii xukunkii ay riday ay dad badan ay cabasho ka muujiyeen, dad badan ay siyaabo kala duwan cabashada u muujiyeen. waxaan rabaa dadka reer Puntland inay horta ku kalsoonaadaan maxkamadahooda iyo hay'adaha cadaaladda. dadku waa sax, kalsoonidu macnaheedu maaha in waxa khaldan laga aamuso. waxaan rajaynayaa maxkamadahana ruuxadoodu in ay mas'uuliyadda ay qaadaan, ilaahay hortiisna uga baqaan, bulshadoodan uga baqaan, in la xisaabinayna ogaadaan. waxaan rajaynayaa garsoorayaashu aan ogahay duruuf adag inay ku shaqaynayaan, go'aanada ay qaadanayaan inay noqdaan go'aano sax ah oo cadaalad ku dhisan oo sharciga ku qotoma. waxaan kaloo aan rajaynayaa garsoorayaashu haddii go'aan ay gaareen laga cabtay in ay dadka u sharaxaan go'aanka ay qaatay iyo qodobada ay ku fadhiyaan. waxaan kaloo dadka u sheegayaa khaasatan ehelada marxuumadda dacwadeeda socotay, maxkamadda hadda dhacday waa maxkamaddii darajada koowaad. maxkamadda darajada koowaad markii ay dhacdo ama xukunkaasi sax ahaado ama khalad ahaado, si qofka loo shaafiyo waxaa jirta racfaan inay wadada sharciga maraan intii ay idaacado tegi lahaayeen oo hadli lahaayeen ama xukun dhacay ay wax ka sheegi lahaayeen. weli fursad bay hayaan, waxaa la rabaa inay racfaan qaataan. racfaanka ruuxadooda haddii ay ku qanci waayaan maxkamadda sare ayaa jirta. maxkamadda sare wixii xataa ka khaldama madaxweynuhu waa soo gaari doontaa. waxaan rajaynaynaa in dadkeennu ay bartaan nidaamka cadaaladda, dowladduna cadaaladda khaasatan dowladda qaybta fulintu faragelin inay cadaalad ku samayso sax ma aha, laakiin dushaan ka eegeynaa oo haddii aan aragno in uu dhaco khalad maxkamadaha darajooyinkeeda lagu sixi waayo waqtigeeda ayaan ka hadli doonaa. lakin waxaan rajaynaynaa inta processku socdo in sabir la yeesho, dulqaad la muujiyo, waxa khaldan wadada lagu saxo loo maro oo maxkamad haddii ay go'aan soo saarto, go'aankaas garsooruhu wuxuu ku qaatay dee isagaa ka jawaabi doona oo sheegi doona. laakiin dadka go'aankaa loo riday hadday isku qancin waa bini aadanka oo dhan baa dabeecadiisa sidaas ah. hadduu ku qanci waayo waxaas ama saxa loo xukumo ama khalada loo xukumo, waxaa loo furo inay racfaan qaataan oo mar labaad ay dacwadii ay gudbiyaan oo maxkamadda maxkamad ka sarreysa ay dacwadii gasho. ilaa 3 xeer ayay maxkamadaheenu ay soconayaan. marka waxaan rajaynayaa iyadana in sidaa loo dareemo, dadkuna dowladnimada uu runtii maaragtay u nuglaado. sidoo kaleeto warbaahinta waxaa la rabaa waxyaabaha ay baahinayaan inay noqoto xirfad meediyaha ah kuna salaysan habka dawliga uu u samaysan yahay oo aysan noqon ra'yiga qofka iyo sida ay la tahay. arrintaasna waxaan rabaa guud ahaan inaan bulshada intaa u sheego. waxaana rajaynayaa keyskan inuu la muuqdo keysaskii horeeto sida keyska Caasho oo uu kusoo dhammaado si dadweynaha iyo dadkii qofkaas dhibanaha ah ehelka u ahaa iyo kuwa dhibka geystaba